booqasho gaaban oo ku joogo wasiir ku-xigeenka isboortiga ee Somaliland mudane Cabdi Yuusuf Aadan ayaa wuxuu galabta booqasho gaaban ku tagay magaalada Milton Keynes isagoo oo ka qayb galay munaasabad ka dhacaysay garoonka kubadda cagta oo run ahaantiina uu kula kulmay mulkiilaha garoonka MK Dons iyo maayarka magaalada iyo niman ka tirsan saxaafadda ay siyaasiyiinta waddanka iyadoo halkaasi aad iyo aad la isku soo falaqeeyay run ahaantiina ay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay wax kala qabtaan qaybaha isboortiga ee Somaliland iyo garoonka Milton Keynes oo ay rabaan inay mataaneeyaan run ahaantiina halkaa wax markii ay isdhex galeen waxaa ka soo baxday natiijo ah inay kooxdaasi ugu ballan qaaday inay qalab ugu deeqdo Somaliland. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Socdaalka wuxuu qayb ka mid ah marxaladda ugu badan ee maanta dhacday in dhalinyarada super qabanqaabisay barnaamijkan ama marxaladdan maanta aan goobjoog doonahay ayaa ka mas-uul ahaa socdaalkayga waa dhalinyarada jaaliyadaha Scandinavia in Europe Somaliland especially UK Africa waxooda ka mid ah oo aanu ku casuulno waddanka inaan ugu sameyno wareeg ay kala qayb geli doonaan dhalinyarada Somaliland intii wax ku saabsanaa socdaalkaygu markaan soo koobo halkaas ku saabsan haddii aan ka gudbo socdaalkaaga waxaan maanta aad la kulantay niman sarsare oo ay ka mid yihiin ninka maaliyaddiisa iska leh garoonka MK Dons maayarka Milton Keynes iyo siyaasiyiin ka tirsan xubnaha siyaasadda ee waddanka Ingiriiska maxaad isleedahay rajo wax ka soo bixi kara kulankiina maanta waxaan filayaa in rajooyin aad iyo aad u qurux badani ay ka soo bixi doonaan Somaliland dhammaanteed waxyaabo badan baan ka wada hadalay iyo ambasiga ambassadorka baan u jeedaa qaybteeda isboortiga qaybteeda magaranaysaa dowladnimoba waxaan filayaa in waxyaabo aad u qurux badan ka soo bixi doonaan especially haddaan qaybta isboort taabto waxaan filayaa in waxyaabo fara badan oo dadka wax u tara ilaa iyo in dadiyowga qaybta disableka ah ayaan ka wada hadalay wakiilkooda waxaan filayaa inaan wax fiican tabcan doono waxaan u tegi doonaa berimahaasa dama haddii la idhaha Scandinavianka labada waddan especially in Denmark iyo Norway waxaa laga yaabaa inay Sweden laftigeeda waqtigiisa waxaa maanta iyadna fursad ii noqotay inaanu wareysano dhalinyar aad u firfircoon oo Milton Keynes degan sida wasiirkuna oo carabka ku dhuftay suurtageliyey in ay kulmaan siyaasiyiin iyo maaliyadda ninka garoonka iska leh MK Dons iyo maayarka maadaama waxay ugu muhiimsan ay ahaayeen dowladda Somaliland iyo annaga maadaama aan isku aragti ka noqonay xagga sports community-da halkan jooga ama councilka halkan uu diyaar noo yahay inuu caawiyo arrintaana xagga xiriirkana uu xoog uga soo shaqeeyay agaasimaha xiriirka Mutaca Jacli oran karo wuxuu leeyahay xubinteeda ugu firfircoon waa isaga waan bedeli karnaa waxaan ku bedeli karnaa wada jir annaga iyo dowladda Somaliland gacmaha is qabsano annaga oo kaashanayna khibradayada gaarka ah ee meeshan aan deganahay aan u leenahay iyo wajiyahan dadka aan isbaranay ka shaqeeya sportiska waan bedeli karnaa wax wanaagsan waan bedeli karnaa ballan qaadiyada way jiraan wax horeyna siiyeen inuu Hargeysa sanadkii laba sano ka hor moota geeyay way jiraan qaar ay hadda siiyeen istoodada noo yaala way jiraan ha yaraado waxqabadku laakiin mar hadduu bilaabmay wuu kordhi karaa marka maadaama ay dowladda Somaliland safiirkeedii iyo wasiirkii ka fadhiyaan alxamdulillah wax weyn baan qaban karnaa socdaalkii uu ku marayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiga ee Somaliland magaalada Milton Keynes oo kusoo gabagaboobay jawiga qurux badan run ahaantiina garoonkana socod dheer ku maray isagoo oo tusayay inaan isboortkuna border lahayn isla markaana la kulmay jaaliyadda Somaliland ee degan magaalada Milton Keynes waa cilmi cismaan waa bari ETN Milton Keynes